السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيغا مايا بيوتي. هدا تكون عصب تهي channel كيغا فضلا سبسكرايب ايقو دفو يعاوية سبسكرايب كايقو دفو ان شاء الله لايكنا ايقو دفتا comments kana iisoo sheega waxaad haddaad ka hesheen maanta videogan aad wax ka barateen amba aad ka hesheen sa maanta makeupka u mariyay maanta waxaan ka hadlayay makeup cusub oo Fenty beauty ah ayaan maanta marsaday marka insha Allah videogan waan ka yara hadlayaa makeup look full makeup look waad iga codsateen waan ii sameeyay waa kaas marka insha Allah I hope inaad ka hesheen hayilowna subscribe ka ilaa gareeya videogan iyo social media iga follow gareeya Instagram ka Facebook ka Snapchat kana ku jira insha Allah wayno actually daawasho wacan videoga si fiican u daawada si fiican u barta samaanta makeup u sameeyay insha Allah wayno videoga dambe aan sameeyo assalamu alaykum. Okay, and waxaan ku bilaabayaa hydration although skincare kii waan dhameeyay waxaan doonayaa inaan marsado serum kan markaas waan ka hadlaa waxa weeyaan the fresh rose deep hydration oil infused serum marka serum kan aad baan uga helaa especially makeup ka hoostiisa kuwa badan oo kalena waan haystaa oo lagu talagalay makeupka hoosta inaad marsado before makeupka aad apply garaysay ayaad marsanaysaa serum amba noocyo kale hayo oo lagu talagalay essence na waan haystaa lagu talagalay skincare prep for makeup prep not skincare prep makeup prep bala dhahaa marka insha Allah waan sameyn doonaa video u gaara arrimahaas waan ka hadli doonaa laakiin maanta waxaan sameynayaa waa makeup look baan nii sameynayaa od liga soo codsaday I think video full makeup look aan sameeyay ayaa liga yidhi please mid kala samee to be honest markaasaasan wejiga oo dhan u wala marinayaa to be honest wallahi aad baa u wala maasantihiin dadkoo dhan ii subscribe gareeyay ii daawada videoyaashayda oo like iyo comments-ka bixi oo as well like social media kale Instagram-ka Facebook-ka Snapchat-ka igala soo xiriira waxay iga codsateen waa full makeup look baa liga codsaday wixii oo dhan aan liga codsadayna waan sameyn doonaa videoyaasha kale waan wala haystaa waan qortay laakiin insha Allah waan sameyn doonaa busy baan aad u noqday laakiin waan ku dadaali doonaa inaan ii sameeyo marka waxaan sameyn doonaa imika eye cream ayaan indhaha hoostiisa marinayaa aan isticmaalayna waxa weeyaan Fenty skin anu aad baan uga helaa Fenty skin eye cream marka eye cream waa very good maaha qofku markuu weyn yahay inuu marsado eye cream I feel like qofku hadduu dhalinyar yahay way fiican tahay inaad sii bilowdid inaad eye cream marsatid waayo ma doonan inaan sugno inaan dee indhuhu hada isu soo yaacaan I think saas la dhahaa laakiin eye creamku wuxuu haystaa faa'iidooyin badan oo hadhow toole marka waxaan isticmaalay waa ring fingerka massage toolkaygii I think makeup meesha makeupka aan dhigto ayuu yaalaa marka waan soo yar iloobay marka waa caadi farahaaga ring fingerka ayaa isticmaali kartaa ring fingerku waxa weeyaan faraheena oo dhan ku fiican aad indhaha delicate weyn waa meel jilicsan marka fingerkan ayaa aad u fiican inaan isticmaalo marka waxaan doonayaa inaan isticmaalo MAC Fix Spray waxa weyn all day hydrating spray oo vitamin C ka buuxa marka although aad wejigayga like aad buu u qoyaa wejigayga ilaa xijaabka everything buu qoyn doonaa like waa very beneficial in yar uma isticmaalaya maanta laakiin marka waa by MAC Cosmetics maanta xijaabka muu iga daadan ba alxamdulillah because usually in badan baan isku spray garayaa intan waa okay
waan u baahanahay hydration, especially makeup haddaan marsanano for you know maalinta dan amba habeenka hadda aroos tigista amba habeenka oo dan waa loo baahan yahay hydration. haddaad haysatid dry skin aad baad ugu baahan tahay. haddaad haysanahay dry skin way fiican tahay, especially haddaad isticmaalisid foundation matte ah amba concealer dry kaa dhigaya oo hydration lahayn, dan way fiican yahay inaad skinkaaga ka dhigtid hydrated. arrimo vitamina ka buuxa inaad you know sii marisid wejigaaga saad you know u hagaajisid wejigaaga. marka waan yar sugaya inuu qalalo and then waan ugu soo noqon doonaa insha Allah. Okay, waa kaas. It was a few minutes baan ku joogay, and although waa arkaysin inaan yar yahay glowy xaggan, laakiin waa perfect saasaan ku joogi karnaa. imika waxaan doonayaa inaan isticmaalo primerkayga. primerka aan isticmaalna waxa weeyaan maanta Huda Beauty again. waxaan isticmaalnaa water based primer, waxa weeyaan water jelly primer, and it's fine, waa absolutely fine. The more hydration the better. For me ani horta aad baan u jeceliya hydration. Although maanta ma isticmaalano hydration, ma isticmaalano foundationka matte, maanta waxaan isticmaalna waa foundation Radiance badan leh, but it's fine. Okay, and primerkii waa marsaday soo arkaysiinba. imika waxaan marsanayaa foundationkayga. foundationka aan maanta isticmaalay waxa weeyaan Nars Natural Radiant Longwear Foundation. saas uu eegyahay. shadeka aan yahayn waxa weeyaan Macao. hoosta ayaan linkidoo dhan nii wala sameyn doonaa soo aragtiin xagan kasoo iibsado etc iyo shadeyaasha oo dhan. marka wejiga oo dhan baan marinayaa kan. so waa kaas. waxaan inaka sameynayaa brushkayga. maanta waxaan isticmaalayaa Zoefa 104 brush. clean brush ba markaa wejiga oo dhan blend garanaya. So inshallah waan igu soo noqon doonaa waayo blending waxay ku qaadaysaa in badan, marka time badan baan isa siiyaa inaan blend gareeyo wejiga oo dhan ku blend gareeyo foundationka. marka inshallah waan igu soo noqon doonaa. foundationkii oo dhan oo marsaday, inakuna zoomed baan in yarna yara digay, which is good. si fiican baa marka u arkaysiin makeup saan u marsanayo. imika waxaan isticmaalaya waxa weeye concealer. marka labadan concealer baan isticmaalayaa by Nars. mid waxaa la dhahaa caramel iyo midna waxaa la dhahaa amande iyo caramel weeyaan. marka kan ka lightka indha hoostiisaan marinayaa, kan afka iyo hareeraha ayaan marin doonaa. so xaggaas ayaan marin doonaa, and then caramel ka lightkana indha hoostiisa. waayaanu aan jecel yahay indhaha inaan ka yara digo light. even powderka waan jecel yahay inaan light ka yara digo waayo aad buu qurux badnaadaa. marka in badan ma isticmaalayo in yar, markas waan yidhaahdaa a little bit goes a long way. marka in yar haddaad marsatid in badan buu ku haynayaa. soo arkaysiinba. sankana waan doonaya inaan mariyo, laakiin focus badan waa inaan siiyo. sanka iyo foreheadka ayaan marin doonaa hadhow. and then actually waxaan doonayaa kan lightka inaan horta yar mariyo hareeraha afka. so waa kaas. and then markaan blend gareeyo ayaan kan marin doonaa bal xaggan. horta ila daawada insha Allah. waxaan soo qaadanayaa Morphe blending brush. actually Zoefa maanta isticmaalayaa 142 concealer buffer brush. marka waan ku blend garanayaa soo arkaysiinba. okay, imika waxaan doonayaa inaan isticmaalo contour. marka contourkan isticmaalay waxa weeyaan Huda Beauty medium Tantour contour and bronzing cream. marka maca bronzerkii buu wataa, laakiin anigu waan jecel inaan bronzer kale inaan marsado maanta, especially maanta waxaan doonayaa bronzer kale inaan isticmaalo. kan waxa weeyaan cream, anana waxaan isticmaali doonaa waa powder haduu toole. laakiin imika ahaan waxaan isticmaalay waa Morphe 459 brush. waxa weeyaan brush sidaa u eg, very easy buu igu noqdaa marka inaan sameeyo positionkan. so
afka hoostiisa, afka dushiisa. imika waxaan samayn doonaa waan blend garayn doonaa bronzerkan amba contourka ayaan blend garanayaa. blending brushka aan isticmaalayana waxa weeyaan waxaan isticmaali doonaa Morphe E4 brush ayaan isticmaali doonaa waa ka. and waxaan sameynayaa just back and forth motion, so sidaas umaan ku wadayaa ilaa ayuu blended ahaado. sidaas umaan ku wadayaa oo dhinacda inuu blended ahaadaan u baahan yahay. marka saas umaan ku wadayaa. marka saan yiriba anigu time badan oo qaataa. marka waan ugu soo noqon doonaa insha Allah. waa kaas waan dhameeyay. also waxaan isticmaalay concealerkii aan xaggan mariyay ee ka caddaa concealerkii kale ayaan foreheadkayga mariyay, and then you know waan wada blend garay. soo arkaysiinba very blended weeyaan. I love markaan sidan u blend garayo makeupkayga. imika waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan powder ayaan marsanayaa. powderka aan marsano waxa weeyaan Laura Mercier translucent powder baan markaa maanta isticmaalayaa. mar hore ay ugu dambeysay inaan translucent powder marsado. before aan translucent powder marsado waxaan iloobay blush baan marsanayaa imika. blushka aan isticmaalay waxa weeyaan Fenty Beauty cream blush. maadaama uu yahay cream blush hadduu talma marsan karo maadaama powder marsanayo fooxuma noqon doonaa. marka kalarka yare casaanka aadka casaanka u ah ayaan cheekskayga marinayaa. so cheekskayga ayaan marinayaa. waxaan isticmaalayaa Morphe 405 brush ka. and then systemkaasaan isticmaalayaa. so up and down, kor iyo hoos saasaan u wadayaa. Cast. I love it. It's really nice. imikan powderka markaa marsanayaa. powderkii aan ii sheegay indhaha hoostiisa marinayaa. marka waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan Morphe E48 brush ayaan isticmaalayaa. waa translucent powder saasuu eegyahay. in liga daadan bal laakiin saa argaysin waa translucent. so yeah. okay imika waxaan samayn doonaa eyeshadowgaygaan soo marsanayaa. eyeshadowga aan maanta isticmaalaya waxa weeyaan Huda Beauty. eyeshadowgayga cusub ayaan isticmaalayaa waxa weeyaan brown obsession. no waa chocolate brown obsession. markaa 3 xabadood bay haysataa la soo baxday. marka waa kaa chocolateku. ka maca eyebrowskan soo samayn doonaa. lasheskan soo xiran doonaa. eyelasheskeygana mascaraga aan markasta marsado uma marsan doonaa waa Nars Climax Extreme Mascara. and waan ugu soo noqon doonaa. okay waa kaas waan ugu soo noqday. marka also waxaan isticmaalay brushkan aadka u balaaran ee weyn. waxaa la dhahaa Morphe 527 brush ayaan powderkii oo dhan marsanaa wala masaxay. soo arkaysiinba. I think imika ayaan doonayaa actually inaan bronzerkayga dul mariyo. just you know waan bronze garanayaa. iyo contourkii ayaan doonaya inaan soo yara celiyo. waa kaas. and then imika ayaan doonaya inaan spray garayo wejigayga. marka sprayga aan isticmaalo waxa weeyaan Morphe continuous setting mist. ayaan marka wejiga oo dhan imika ku buufinayaa.
Okay, in yar baan yar suginaa intuu qalalo. waxaan imika isticmaalay waa highlighter baan doonayaa wejiga inaan highlight garayo. Revolution Pro ayaan marsanayaa. waxa weeyaan makeup revolution laakiin pro. metal baa la dhahaa, supreme highlighter in metal. marka I think waxaan doonayaa inaan maanta marsado. waa dahabi, aad u dahabiya. marka kaas ayaan marsanayaa. Okay, waan marsaday soo arkaysiinba highlighterkii. imika waxaan marsanayaa lipstick. Actually lip gloss oo maanta isticmaalaya, laakiin waxaan doonayaa inaan line gareeyo lipskayga. marka waan line garanayaa. waxaan isticmaalayna waxa weeyaan Morphe Trendsetter ayaan markaa ku line garanayaa lipska. waxaan marsanayaa waxa weeyaan Fenty Beauty Gloss Bomb Heat baa la dhahaa. wiigii hore ayuu soo baxay. marka Fenty Beauty waa garanaysiin, aad iyo aad baan u jecel yahay. marka channelkii kale review waan ka hadlay, laakiin af English baan ku hadlay. marka maanta waxaan siri af Soomaalina ku samee, maadaama dee labada channel waan doonaya inaan nituso makeupka cusub waxa soo baxay, waxa trendiga ah oo dadkoo dhan marsanayaan ama dadkoo dhan ka hadlayaan. marka Gloss Bomb Heat ayaa kala dhahaa. saasuu eegyahay. anu waxaan kasoo iibsaday Boots baa ka heli kartaa. haddaa rey UK tihiin Boots baa gadaa. marka in yar haddaan nigeera sheekeeyo inta la siinayo iyo so kan waxaa laga siiyey 19 pounds oo 19 pound baa laga siiyey. Fenty Beauty Gloss Bomb Heat ayaa la dhahaa. waxa weeyaan lip plumper, so furahaaga ayuu qurux ka dhigayaa, plumped weer weynaysiinayaa. waxaa ka buuxaa, to be honest waxaa ka buuxaa, anigu markaan ursado waxa aan uriyaa like ginger iyo xawaashka xaafada aan ku haysano. waa very strong oo kulayl. waxaase loogu bixiyey heat because furahaaga ayuu si u yara noqdaan, si u yara weynaadaan. waxa weeyaan shimmer free lip luminizer. waxa weeyaan plumper. wuxuu ku siinayaa dee furaha uu ka yara degaya, uu yar weynaysiinayaa. I know gabdhaheena Soomaaliyeed ama gabdhaha ma u baahano inaan furaheena si yara weyneyno, laakiin sometimes qurux buu ka digaa. lips la sameeyo oo kale ayuu u ekaanayaa. marka I think waxaasii ka wadi markii doonaysa inay sameyso productkan. ingredients ku jira waxa weeyaan shea butter, vitamin E, moisture badan buu markaa ku siinaya maadaama vitamin E ku jiro. moisture engage ma noqonayo fururahaaga. marka aniga horta markaan baxayo amba meel dukaanka u yara baxayo waa marsadaa. very beautiful lip liner ma mariyo, laakiin isagu maa iska marsadaa. wuxuu ku siinaya waa sida like I don't know Vaseline oo kale ayaan u marsadaa nan ku baxaa, laakiin more wuxuu ku siinaya qurux. waa lip plumper basically iyo luminizer iyo ku siinaya like a wet look, qurux like qurux buu kaa dhigayaa. maha glossy aada, laakiin waa just beautiful shine finish buu ku siinaya, just finish qurux badan ah. marka waxaan sameyn doonaa waan marsan doonaa. so arkaysiinba waxa weeye very much casaan, laakiin waxaa loo maleynaya ma loo maleynaya inaad wax marsan tihiid. it just looks like lipskaaga. saan kuu sheegay markaan dukaanka yar tagayo oo kale ayaan yar marsadaa. ma u ekaba inaan wax marsan yahay, which I love. anigu waan jecel yahay markaad de marsanayn any makeup inaad I think lip linerkii baan ku mix gareeyay, which aan jeclayn, laakiin it's fine. laakiin casaan wala arkaya xaggan.
كهلي ما شاء الله so nice. Absolutely love it. in yar kuleel waa dareemaysaa kuleel ku gubaya waayo wuxuu sameynayaa dee furuurihii buu ka dhigayaa yar weyneynaya in yar in badan maaha marka waxaasaa loo saaray heat glass bomb heat baa loo saaray you know haddii lasoo baxdo glass bomb heat oo kala brown iyo qurux buu noqonayaa laakiin kan waa keedii ugu horeysay aniga glass bombska ay lasoo baxdayna waan haystaa markasta waan isticmaalaa I feel like lipskayga aad iyo aad baan ugu helaa gloss bombs and Fenty Beauty lipstickskayga maca lip liner mi lasoo bixin hopefully wila soo bixi doontaa laakiin glosseska plush matte lipstick ay haystaa as well I love kaas maca even like skincare and waxaan haystaa just lip and you know subaxdii markaan soo kacayaan yar marsada waa very good hydration badan buu isiiyaa marka waan dareemayaa kuleel yar laakiin waa caadi kuleel aad ziyaada ah maaha okay and sawirka simba makeup kaygii waan dhameeyay and I hope inaad ka hesheen maanta sida makeupka u marsaday ama sida nitosiba sida makeupka maanta u marsaday and haddaad already subscribe gareen subscribe garee like garee comments garee as well commentka iga soo qora videoga aad doonaysa inaan sameeyo next haddaad iga follow gareenna social mediagayga snapchatka instagramka facebookka xagga hoosaan kuwala soo qori doonaa marka iga wala follow gareeya instagramkana iga follow gareeya haddaan xayan ka maqan yahay instagram aan ku jiraa marka insha allah wayno videoga dambe aan sameeyo. Assalamu alaikum.